intii haleesha inti xumaha ku fogan maxaan ugu tahay xiriirka hantada intii haleesha daawade kusoo dhawow janaalka dalnuursha tube. daawada haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, share, like iyo comment. sidoo kale daawada haddii aad hore nooga mid ahaydna mar labaad soo dhawow. daawadayaal, halkan waxaan idinkala wadaagayaa qiso jacayl oo aad iyo aad u xanuun badan. qisada waxaa inoo soo tabiyey ama ii soo tabiyey walaalkeen Hanad ama marna saaxiibkeen Hanad. daawadayaal, dhegeysi wacan. qisadani waxa ay ku dhacday wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed. wiilka magaciisu uu yahay Salmaan iyo sidoo kale gabadha magaceedu uu yahay Nafiso. Salmaan ayaa ka sheekeeyay qisadan oo mid xanuun badan, waxaana ku bilaabay sidan: waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, waxaana ku soo barbaaray dalka Sacuudi Carabiya. nasiib wanaag, sanadkii 2001 ayaa waxaa nasiib u yeeshay inaan soo caga dhigo magaalada London ee dalka Ingiriiska. gabadha aan ifka ugu jeclaan doono ee Nafisa ayaa waxaan isku dhex baranay gaari bas ah oo ka dhex shaqaynayay magaalada London dhexdeeda. markii aan baska isku dhex baranay Nafisa ayaa waxaanu kala qaadanay taleefanadii gacanta ee aanu wadanay. sanadkuna wuxuu ahaa 2006 ama 2006. waxaan bilaabay inaan khadka kala xiriiro Nafisa, isla markaana iyada waxay ii arkaysay nin aad u wanaagsan oo waxayba jeclaan jirtay inaan waqti la qaato. mararka qaarkoodna waxaanu ku kulmi jirnay guri ay ku nooleed gabar aanu qaraabo nahay. aniga iyo Nafisa ayaa waxaan isku noqonay lamaano aad isku jecel oo aanan kala maarmin. waxaan alaaba samayn jiray waxyaabaha ay jeceshahay Nafisa, sidoo kale iyadana waxay iga ilaalin jirtay wax kasta oo dhibaato ii keeni kara amaba aan dhibsanayo. gabadha aan ifka ugu jeclaan doono ee Nafisa ayaa waxay jeclaan jirtay inay markasta ii soo qorto dhambaalo jacayl ah oo ay ku cabirayso heerka uu gaarsiisan yahay jacaylka ay ii qabto. anna waxaan aad uga heli jiray inaan akhristo dhambaalada xiisaha leh ee ay ii soo qorto gacalisadeyda. sidoo kale Nafiso waxay ahayd gabar markasta jecel inay maqashiiso waxyaabaha ay dunida ugu jeceshahay iyo waxyaabaha ay ugu neceb tahay, iyadoo taasi ku muujinayso waxyaabaha ay doonayso inay mustaqbalka igula wadaagto. bartamihii sanadkii 2009 ama 2009 ayaa waxaa labada qoys ee aanu ka kala dhalanay ay isku afgarteen inaannu isguursano. waxaanu ku aqalgalnay magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. magaalada New York waxaanu ku soo wada noolaanay muddo 4 bilood ah, nolol aad iyo aad u macaan badan. iyadoo xaaladdu ay sidaas tahay ayaa waxaa dib ugu soo laabanay magaalada London oo aan markii horeba wada joognay. markii uu guurkeennu ka soo wareegatay muddo 8 bilood ah, isla markaana ay Nafiso leedahay uur 3 bilood ah, ayaa waxaa dhacday in isbeddel ballaaran aan kala kulmo Nafisa. mar kasta oo aan Nafisa weydiiyo sababaha keenay isbeddelka xoogga leh ee ku yimid, ayay waxay iigu dhihi jirtay, saaxiib, niyad kuma hayo ee iska kay fasax oo orod oo guurso naagaha kale oo niyad ku haya. hadalkaasi waan la yaabay, laakiin sidaas kuma aanan quusan. iyadoo ay sidaas tahay ayaa waxaan maalin maalmaha ka mid ah Nafiso ku idhi, walaalay, bal ii sheeg sidee wax u jiraan. markaas ayay waxay igu tiri, orod oo la soo baashaal naagta kale ee aad qabto.
naag kale yaab aniga oo aan waxba qabin ama aan la sheekaysan ayay igu tiri erayaas, waxaana igu soo yaraaday adduunkii oo dhan. Waxay sheekadu isku cakirnaataba waxaan maqlay Nafisa waalidkeeda oo leh ninkaas kuma qalmo ee orodoo iska soo fur. Caqli xumada Nafisa iyadoo aan waxba hubsan ayay igu kicisay buuq iyo qayli xooggan, waxayna igu tiri ifur ama aniga dhimanayo. Markii aan arkay in xaaladdu cirka isku shareertay ayaan waxaan go'aansaday inaan iska furo. Muddo kadib ayaan waxaan maqlay in ay Nafiso igu soo diri jireen qoyskeeda. Haddase ma aqaan sababta keentay in Nafisa qoyskeeda ay igu soo diraan gabadhooda, laakiin waxay ahaataba waalidiinta Soomaaliyeed iyadoo ay iska fiican yihiin inta badan ayaa waxaa jira kuwa qoysaska dhisan lumiya. Waxaan ugu baaqi lahaa in ay Alle ka cabsadaan kana xishoodaan. Nafisa oo hadda ii haysa hal gabar oo 2 sano jir ah ayaa waxay iga codsatay inaan dib ugu laabto, mana aqaano qaab aan ugu laabto maxaa yeelay anigoo aad u jecel ayay dhulka igu jiiday, weliba waxay iga xumaysay guurkaygii ugu horreeyay. Haddaba dhagaystayaasha sharafta leh, waxaan ka codsanayaa bal inay ila soo taliyaan sida aan ka yeeli lahaa Nafiso. Daawadayaal, qisadii halkaa ayay ku soo dhammaatay. Waxaan rajaynaa in fikradihiina quruxda badan iyo talooyinkiina aad noogu reebi doontaan qaybta hoose ee ah kommentiga. inti xumaha ku fogan maxaan uga jaray xiriir